kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. In badan ma ku fakaraysay inaad wax barato, laakiin nasiib darro ma u weysay firaaqo aad ku xaadirto goobaha waxbarashada mashquulkaaga oo badan awgeed. Haddaba Fan Academy waxay idiin keentay xal, oo ah inaad wax barato adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo joogo xilliga aad firaaqada leedahay. Fan Academy waxay idin diyaarisay waxbarasho online ah. Maadooyinka aad ku baranayso online-ka waxaa ka mid ah Diploma in English, aad ku baran doontid heerarka kala duwan ee luqadda Englishka. Diploma in Arabic, sidoo kale aad ku baran doontid heerarka kala duwan ee luqadda Carabiga. Diploma in Nutrition, Diploma in Nursing, Diploma in Project Management, iyo maadooyin kaloo fara badan. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir WhatsApp numberska shaashada kaaga muuqdo ama booqo website-keena fahanacademy.com. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir. Halkaad igala socotaana waa Fahan Academy. Darsigan waxaynu ku baran doonaa hadduu alla idmo. What are the differences between American and British English? Waa maxay the differences kala duwanaanshiyaha ama farqiga between u dhexeeya American and British English, Ingiriiska Britishka iyo midka Mareykanka ah. Marar badan waan maqalnay inay jiraan laba accenti ama laba lahjadood oo luqadda Englishka oo la kala yiraahdo American accent iyo British accent. Insha Allah muuqaalkan isku dayi doonaa inaan in badan lafagurno farqiga u dhexeeyo American English iyo British English, inagoo soo qaadan doono waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku kala duwan yihiin labadan luqadood. Run ahaantii dadkeena Soomaaliyeed mana kala socno Mareykanka iyo Britishka. Waxaynu ku hadalnaa labada luqadood oo la isku daray, mixed ah. Laakiin insha Allah tacaala muuqaalkan kadib waxaan rajeynayaa in qof kasta uu fahmi doono farqiga u dhexeeyo British English iyo American English hadduu alla ka raali noqdo. Si fiican oo dhammaystiran u daawo muuqaalkan bilow ilaa iyo dhammaad si aad wax badan uga ogaato farqiga u dhexeeyo American English iyo British English. Are the British and Americans really separated by a common language? How different are these two versions of English actually? Are the British and Americans really separated by a common language? Ma jirtaa luqad caam ah oo kala saarta Mareykanka iyo Britain? How different are these two versions of English actually? Haddii aysan jirtana waa qaab noocee ah kala duwanaanshaha labadan luqadood ee Englishka ah. Differences kala duwanaanshaha. Kow aynu ka bilowno accent differences wax la yiraahdo. Accent differences wax la yiraahdo kala duwanaanshaha xagga lahjada ama dhawaqa. It is difficult to make clear distinctions between US and UK accents. It's difficult to make clear distinctions. Way adag tahay in la sameeyo kala socnaansho waadix ah between US and UK accents ee u dhexeeya lahjadaha Mareykanka iyo midka UK. When there's such a wide variety of accents within both the US and UK. Goor ay jirto kala duwanaansho aad u ballaaran lahjada Mareykanka iyo midda UK gudaheedaba. Waxaan ula jeedaa Mareykanka gudihiisa wuxuu leeyahay lahjada aad u kala duwan oo Ingiriis ah. Sidoo kale UK. A Texan and a New Yorker are both Americans but have very different accents. Qofka reer Texas ah ee Mareykanka ah iyo qofka degan New York labadoodu waa Mareykan, laakiin have very different accents. Dhanka lahjada aad bay u kala duwan yihiin weeyaan. The same goes for British. Sidoo kale dadka reer Britain oo kale. Accents in London
Manchester and Glasgow aad bay u kala duwan yihiin. Lahjada London looga hadlo, midda Manchester looga hadlo, iyo midda looga hadlo Glasgow aad bay u kala duwan yihiin. However, some very general distinctions can be made. Inkastoo kala soocid guud lagu samayn karo Britishka iyo Mareykanka. Tusaale, Americans usually pronounce every R in a word. Caadiyan Mareykanka xarafka ah R erey kasta uu ku dhex jiro way ku dhawaaqaan, while halka the British tend to only pronounce the R when it is the first letter of a word. Kaliya dadka reer Britain waxay R-ta ku dhawaaqaan marka ereyga uu ku bilaabmo R. R sound oo kale. Tusaale, R sound American English iyo British English waa aragna markay u dhawaaqaan. American English waxay leeyihiin tusaale teacher waxay ku dhawaaqayaan R-ta u dambeysa waxay leeyihiin teacher. Britishkana teacher. Mother Mareykanka wuxuu leeyahay mother R-ta ayuu muujinayaa. Britishka waxay leeyihiin mother R-ta way qarinayaan. Marka R soundiga noocaas weeyaan. T soundiga Mareykanka ereyga T-da wuxuu ku dhawaaqaa D. Britishkana caadi weeyaan T-da caadi u akhriyaan. Tusaale, better water. Mareykanka waxay leeyihiin better T-da waxay u dhawaaqayaan D. Britishkana caadi weeyaan waxay leeyihiin better. Ereyga kale ee water waxay leeyihiin iyaga Mareykanka water. Britishkana water. Spelling differences farqiga hingaada ee u dhexeeya British and American accent. American accent saa u jeedaan color qaabka u qora fiir COLOR. Britishkana waa COLOUR. Waxay kala duwan yihiin U-das. Behavior sidoo kale waxay kala duwan yihiin U-das. Theater waxay kala duwan yihiin midan R ay ku dhamaataa tanna E. RT ED ayaa la isdin mariyay. Meter sidoo kale. Organize tan waxay ku dhamaataa Z ama ZEE tanna SEE. ZEE ama SE. Traveled tan L-ta ayaa laga dhigay laba laab midan hal L oo keliya weeyaan. Marka waa qayb ka mid ah spelling differences u dhexeeya British accent and American accent. Vocabulary differences dhanka ereyada maxay kala duwan yihiin. American English, British English. Panties, trousers. Americanka waxay yidhahdaan iyaga surwaalka panties. Britishkana trousers. Gawaarida waaweyn xamuulka Mareykanka waxay yidhahdaan truck kuwana lorry. College, university. Jaamacadaha waxay ka yidhahdaan kuwan college kuwana university. Vacation, holiday waa fasaxa. French fries iyo chips waa jibsiga. Mareykanka waxay yidhahdaan French fries kuwana chips. Soccer, football. Kubadda waxay yidhahdaan Mareykanka soccer kuwana waxay yidhahdaan football. Store, shop waa dukaanka ama bakhaarka. Store iyo shop ayay kala yihiin. Grammar differences farqiga dhanka naxwaha ee u dhexeeya British and American accents ayaynu baranaynaa iminka. Prepositions marka loo eego dhanka meelayaasha. American English, British English. I'm going to a party on the weekend. I'm going to a party at weekend. Kan wuxuu yidhi on kana at. Farkaasi kala duwan yihiin marka. What are you doing on Christmas? Xilliga Christmaska maxaad qabanaysaa? What are you doing at Christmas? On iyo at. Monday through Friday. Monday to Friday. Kala duwan yihiin through iyo to. It's different from ama it is different than others. Waxyaabaha kale way ka duwan tahay weeyaan. Marka waxay dhahaan iyaga different from ama different than waa Mareykanka. British waxay dhahaan iyaga it's different from ama it's different to. Kala duwan yihiin than iyo to. Dhankaasna waxaa weeyaan grammar differences.
Past simple is present perfect. Americans tend to use the past simple when describing something that has recently occurred, while people in the UK are more likely to use the present perfect. And dadka u dhashay Mareykanka waxay isticmaalaan simple past ama past simple saa u taqaanaan ama simple past oo isku mid when describing something that has recently occurred. Wax dhowaan dhacay ayay u isticmaalaan simple pastiga. Halka dadka ku sugan UK, United Kingdom, are more likely to use the present perfect. Inta badan u isticmaalaan present perfect markay ka hadlayaan ficil goor dhow dhacay. Britishka present perfect waxay u isticmaalaan markay ka hadlayaan dhacdo goor dhow dhacday. Mareykanka bilcagsi waxay u isticmaalaan tense loo yaqaan simple past. American English, British English. I ate too much. I have eaten too much. I went to the store. I have been to the shop. Did you get the newspaper? Have you got the newspaper? Ninka markuu leeyahay Mareykanka goor dhow ayaan cunay wax badan wuxuu leeyahay I ate too much. Kan wuxuu leeyahay I have eaten too much. Kan markuu leeyahay waxaan aaday dukaanka wuxuu leeyahay I went to the store. Kanna I have been to the shop. Did you get the newspaper? Ma heshay jaraa'idka? Kan wuxuu leeyahay have you got the newspaper? Collective nouns singular or plural. Collective noun-ka magacyada isku dhafan. In British English, a collective noun like committee, government, team. British English-ka collective nouns-ka sida committee oo guddi, government dowlad, team iyo koox, each wixii la mid ah can be either singular or plural. Waxay noqon karaan in loo fiiriyo ama loo eego mufrad ahaan ama jamac ahaan labadaba, but more often tends towards plural. Laakiin inta badan waxaa loo fiiriyaa jamac, emphasizing the members of the group iyadoo la xoojinayo xubnaha ka mid ah guddiga. Collective nouns in the USA. Collective nouns in the USA marka. Collective noun-ka Mareykanka marka loo eego by comparison are always singular. Barbardhigooda mar walba iyaga waxaa weeyaan waxay u isticmaalaan mufrad ahaan emphasizing the group as a one whole entirety. Ayagoo groupka uu eegayo inuu yihiin guud ahaanba hal inay yihiin. Tusaale, American English, British English. The government is doing everything it can during this crisis. The government is doing everything it can. Dowladdu waxay sameynaysaa wax kasta oo ay awoodo during this crisis inta ay jiraan crisiskan. And the government is u yidhi kan wuxuu leeyahay the government are doing everything they can during this crisis. oo ujeedaa wuxuu isticmaalay ninkan is iyo it oo loo isticmaalo mufradka, kanna are iyo they oo ah jamac. My team is winning. Teamkayga wuu guuleysanayaa. My team are winning. Regular or irregular verbs. Marka loo eego regular or irregular verbs, ficilada quman ee caadiga iyo kuwa aan qumaneyn. In American English, the verbs pan, dream, learn, smell, and spell are all regular. Marka loo eego Ingiriiska Mareykanka, ficilada kale ah ban oo ah gubis, dream riyo ama ku riyoosho, learn barasho, smell oo ah urin, iyo spell oo ah hingaadin are irregular. In American English, the verbs span, dream, learn, smell, and spell are all regular. Marka loo eego Mareykanka, dhammaan ereyada kale ah gubidda, kuriyooshada, barashada iyo urinta iyo sidoo kale hingaadinta are all regular. Waxaa loo isticmaalaa si regular ah. Tusaale, ban, banned, banned. Dream, dreamed, dreamed. Learn, learned, learned. Smell, smelled, smelled. Spell, spelled, spelled. Waxaan u isticmaalaa dhammaan regular verbs. In British English, these verbs are usually irregular, with past tense and past participle forms ending in T. And in British English, these verbs are usually irregular, with past tenses and past participle forms ending in T. Marka loo eego Ingiriiska Britishka, ficiladan
dhammaan waxay noqonayaan irregular markii laga dhigayo past tense iyo past participle iyagoo ku dhammaanayo weliba qaab ah t. tusaale pan, pant. marka waxaad baanayso mahayn had waxaa pant, pant. Dream, dreamed, dreamed. Learn, learned, learned. Smell, smelled, smelled. Spell, spelled, spelled.